بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله الصومالي ملت شوكتان با إلهي سبحانه وتعالى يدكو أما يلو عدي لبندبك الله كقادو عدي دن لأله وفي انت بهن الله ديقو انت بكت الله بكسيو انت لمتي الله نحرستو والدينتين الله نحرستا أننا الله نوقدب نحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. Maanta waxaa farxadii ah in uu igala soo qayb galo madasha Dr. Professor Khadar Jaamac oo ka mid ah professorada jaamacadda University of Minnesota, kana mid ah culimada ahludiinka ah ee reer Minnesota. raggii asxaabteennii zoomka soo wada geli jirtayna ka mid ah Dr. Khadar, asal ahaana ka soo jeeda Somaliland. Dr. Khadar waa ku soo dhaweynayaa marka hore, ku soo dhawow madasha. يا أبو سعوان دواهي وأنا كل سلام يا ديك أيها دقيستياشة أدب وسلامتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدب أم هتسنتهاي وقت جاجا وكاجا مهدعلنا Dr. Khadar, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhowr su'aalood oo ku saabsan isbeddelkii dhacay tan iyo dagaalkii Gooja Cadde August 25 wixii ka dambeeyey. Marka koowaad waxaa naga siisaa sawir guud bal marxaladda amni, siyaasi, economy ama dhaqaale ee ay ku jirto mandaqadii Somaliland. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. شيخ عبد الرزاق سلام يا مر لباد. الله يسلمك. waxaan salaamayaa walaalaha ugu xiran ku dhageysta runtii daafaha dunida kala jooga. arrin runtii dhacdo ugu badan la noolayn maalmihii la soo dhaafay. odaneen wax la iska weydiiyo. Soomaalida waxa ku mahmaahdaa Sheekh Cabdi Rasaaq oo aqalkaaga hortiisa ood weyn baa la dhigtaa. Afkaaga hortiina afeef baa la dhigtaa. arrintani laba ka maarin mayso inaan anigu shakhsiyan afeefto iyo sidoo kale jawaabtaas ama su'aasha aad weydiisay jawaabteeda waxoogay hordhaca inaan u helo. waa midda koowaad afeefta ah ee maalmahan oo caadifadu ay kacsan tahay dad fara badan oo waxaa laga yaabaa reer Somaliland qofkii hadalkiisa ay dhaliil ka dareemaanba inay ku xisaabiyaan Somaliland cadow inuu yahay. marka horta anigu cadow ma ihi, sidoo kale walaalka ay hoosti gareynayo Sheekh Cabdi Rasaaqna waan aqaanaa cadaawad Somaliland ma qabo. waxaana iga markhaati kacaya 10kii sano la soo dhaafay. waxaan maanta sheegi doonaa haddii dhaliil loo fahmo waxaan maanta odhanaya ma aha 10kii sano la soo dhaafay iyadoo fiidiyoya iyadoo qoraal la waa la hayaa. inta maanta aan leeyahay baan lahaa. waxaan aaminsanaa Somaliland inay tahay bil 3. Soomaalida waxay tahay bil 3 dabkaagana way ka kaxaysaa, dab muslimna kuma gaarsiiso. Somaliland dadkana way naga goynaysaa, inagana cidla ina dhigaysa. Janiska aanu helay inaguna aan ka faa'iideysano haddii 60kii aanu tabasho sheeganaynay maanta aanu system haysanaayo wixii 60kii ina seegay aan ku soo dhaxsanno. Soomaalina aanu uga faa'iideyno oo midnimadii dib loo helo. Fikradda anigu aan aaminsanaa taas bay ahayd. Fikradda ay aaminsanaayeen aqoon-yahano fara badan oo gobolka ka soo jeedo oo ay ka mid ahaayeen raggii aas-aasay ururkii la odhan jiray mar kale midnimo. iyaguna taas bay aaminsanay waxay aaminsanay wax la odhan jiray aan heshiino oo aan la heshiino. inagu haddaynu reer Somaliland nahay xuduudkii aan baxayndaabkii gumaysta aynu ku wada jirno in maamulka ogolaya inaan ogolaynima aynu heshiino, kadibna inagoo heshiisa Soomaaliinteeda kale aan la heshiino. aragti caafimaad qabta ayay ahayd, laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa cadur dhowdhowdu ma dhacsana. siday doonta waxaa noqotee Somaliland oo 12 sano jirtay 30 sano jirtay tamari meel ay dhigtaba maanta muuqaaladii hore ka duwan ayay leedahay. waxaan san rabaa inaan xasuusiyo muddada la soo dhaafay Somaliland waxay lahayd 3 wax. 3 waxna way hiigsanaysay. 6 arrimoodba maanta fara maran ayay ka taagan tahay. waxay lahayd siyaasi waxeeriya iyo oday dhaqameed xilkas ah iyo bulsho xiisa qabta. 3 way lahaan jirtay oo siyaasiga waxeeriyo waxaan ka wadaa siyaasi markay tiisa iyo bulshada ay noqoto wax ka tanaasula. in yar haddii aan daqiiqad dib u milicsano taariikhda ninkii la odhan jiray Tuur Cabdiraxmaan Tuur madaxweynihii ugu horeeyay 2 sano ayaa la doortay
labadii sano iyadoo aanay dhammaanin baa khalkhal amni yimid waxaa lagu qanciyey muddadiisa oon dhammaanin doorasho inuu qabto labadii sano isagoo dhammaysan isagoo wax xeerinaya wax xeerinta aan sheegaye ayaa doorasho uu qabtay oo laga qaaday ninkii la odhan jiray ina cigaal inkasta oo xeerarkan maanta waxa weeye madax iyo mijaha dadka isu geliyey isagu uu sameeyey oo uu rabay shaar uu leeyahay inuu tasho haddana waxbuu xeerin jiray waxaa laga hayaa nabadda waan iibsadaa waana sababta keentay markuu dhintay inaan hanti uu leeyahay oo maanta farta lagu fiiqaa waddankaanay u oolin dhinaca kale marka la fiiriyo madax dhaqameed wax xeerinaya oo xilkas ah oo ummaddu ay maqlayso oo wax xallin kara oo la dhegaysan kara ayay lahaayeen intaa waxa weheliyey oo dhinac socday arrin saddexaad oo ah xiise bulshadu ay qabto oo ay aaminsanaayeen waxa weeye dowlad baa soo socota ictiraaf baa soo socda maaweelo aan kala go' lahayn oo xisbiyaa la aas-aasayaa doorasho deegaan baa la gelayaa tii baarlamaanka qabsoomaysa tii madaxweynaha ku xigta dadku xoogay bay markaa ku mashquulsanaayeen tiina waxa laysa soo taagay derbigaa la soo taabtay oo xisbiyadii waxay ku gabagaboobay dadkan ay kala qaybqaybiyaan doorashooyinka waxay keeneen in la isnaco muddo dhaafin lagu keeno dictatorship iyo keliga baa talinaya inay noqoto cadaawada inay timaado qola buuraha fuusho taas markaa way lahaayeen saddexdaa arrimood bay lahaayeen saddexdii maanta midna gacanta laguma hayo sababna waxay ku mahmaahdaa meel aar ka kacay atoor fadhiisay raggii noocaas ahaa ee waxeerin jiray raggaynaan isaga warramahayn baa boosaskoodii maanta fadhiya oo haddii dantu ay nagu qasabto inaynu taariikhdooda dib u milicsanno mashruucan dhexdiisa intaynu ku jirno wax iska weydiin doonno saddex arrimoodna somalilan way hiigsanaysay amba ajandayaasheeda ayay ka mid ahaayeen midnimo gudaha ah oo intaa xayndaabkii gumaysiga ku wada jirtay inay salli ku wada darma ay ku wada fadhiisato xeedhada ay dhinacyada ka soo fadhiistaan salkeeda waxa yaalla ay arkaan saami qaybsi heshiis ay ku yihiin ay wada yeeshaan waxay hiigsanayso ambaha ku guulaysato somalilan amba yaanay ku guulaysanin ajandayaasheeda ayay ka mid ahay ilaa iyo waxa halka u dambaysa ilaa iyo koonaha kale in midnimo la helo qodobka labaad waxa ahaa qadiyadda somalilan in la iibiyo oo adduunweynaha laga iibiyo oo goobaha waxa weeye maraakisul qaraarka loo yaqaano amba go'aanada caalamiga ah laga gaaro qadiyadda somalilan in la geeyo lagu qanciyo qodobka saddexaad amba hiigsiga saddexaad u yaalana waxa uu ahaa in soomaalida kale laga dhaadhiciyo qadiyadda somalilan oo lagu qanciyo afti in loo qaado saddexdii arrimoodna somalilan maanta faramaran bay ka taagan tahay oo haddii midnimo gudaha la raadinayay xayndaabkii gumaystaa maanta laba maamul baa ka jira oo waxa weeye khaatume state iyo old somaliland baa maanta ka jira haraagii somaliland waxa weeye aftiqaadkii lama hayo oo soomaaliya afti loogama qaadin adduunka markaanu ka hadlayno qadiyadda somaliland laga iibiyana waxay dhaafi weyday wiil yar oo ingiriiska jooga oo williamson la yidhaahdo oo lacagtii somaliland ka dhameeyey iyo oday kale oo aan u malaynaya michael rubin la yidhaahdo halkan maraykan hadda annaga nala jooga labadaa qadiyadood labadaa nin bay dhaafi weydo malaayiintii laga qaadayay dadkii cashuurta ay ku dhammaadeen saddexdii arrimoodba hadda dead end bay somaliland ay ka taagan tahay marka runtii haddaad i weydiisay waaqica marka waxa weeye somaliland waxay lahaydna faramaran bay ka taagan tahay waxay hiigsanaysana faramaran bay ka taagan tahay waxa weeye raggii samata bixin jiray maanta lama hayo haddii marka aan soo khulaaseeyo somaliland xaalkeedu muxuu yahay anoon cidna ku xumaynahayn talax tagna aan uga jeedin waxaan anigu aaminsanahay somaliland way duntay mashruucii somaliland la odhan jiray wuu soo afjarmay wax maanta ka sii jooga waa 3 gobol markaanu fiirino gobolladii hore dowladdii Soomaaliya ee loo yaqaan ummadda Soomaaliya heshiiska ay ku ahayd waxaanu haynaa waa Togdheer iyo Waqooyi Galbeed iyo Awdal oo iyana hadda waxa la yabyabaaye iyo mashaariic aan dib uga hadli doonaa heshiisyada la orday aan qayb ka ahayn labada gobol ee soo haray oo waxa weeye Waqooyi Galbeed iyo Togdheer oo dhexdooda jabhada ay ka jirto hubayso gacan libax waxa ka socda maanta aynu ognahay Somaliland xagee looga kacayaa maxaa mustaqbalka u yaala waa arrin ay doodeeda lahayn waxa weeye haddana wax iska weydiin karaan u iman doono laakiin Somaliland by one word Somaliland way duntay Allah ku barakeeyo Professor Khadar si runtii mugle baad u sharaxday waana fahmay in waxaan hadda buuq kaga keeno ama aan muran ka keenana ima muuqdaan that xaqiiqada hadda factiga jira oo the reality on the ground waxa la yiraahdo xaqiiqada jirta waa intaas aad sheegtay waana inta waliba saddexdii ay lahaan jireen inta ay Soomaalidu
idinku haysatay oo idinkaga maarmi lahayd bay ka mid ahayd inaad hormuud u tihiin siyaasadda oo laydinkaga daydo siyaasadda, inaad leedihiin dad xilkas ah, maxaa la oran jiray, dadkii la oran jiray waayo arag iyo indheer garad iyo murti iyo dadkii laga soo yani loogu dhaadhici jiray af soomaaliga iyo garashada iyo deeqda iyo karaamada. dadkaas waxyaabaha anigu dadka ka soo horjeedaan ahay Soomaaliland inay go'do. waxa ugu weyn oo aanan ka samri karinna waxay ahayd meesha xigmad baa iga jirtaan dhihi jir, xigmad baa halkaa iga jirta, halkaa garasha iga jirta, halkaa aqoon baa iga jirta, kagama maarmo Soomaaliya oo dhanna kama maaranto. marka waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo noo ahaa annaga cabirka ama halbeegga noo ahaa aanu ku hiiranayno ayay ka mid ahaayeen saddexda aad sheegtay inay lahaan jireen oo aanu hadda runtii noo muuqata sida aad u cabirtay annagana noogu muuqata. su-aasha labaad waxa weeye waxaa la sameeyey beri dhoweyd dagaalkii markuu dhacay kadib guddi baa degdeg u fadhiistay beesha habar jeclo, go'aamay soo saareen. waxaan arkayey xildhibaan abiib iyo axmed samatar oo aad isku magaalo degan tihiin, professor axmed samatar oo ka hadlay. waxaan kaloo ogahay rag kaloo dhowr oo ka hadlay oo meelo kala duwan ka hadlay oo ka soo jeeda reer awdal. waxa kaloo aan maanta arkaynay beesha ciise oo iyaguna soo saaray go'aan ah inaan go'aankii odayaashu gaareen uusan khusayn. bal horta go'aankan noo sharax, muxuu yahay, muxuu ku aadan yahay, yuu khuseeyaa, maxayse tahay qaabka siyaasiga ah oo ay soo bandhigeen oo ay soo saareen. waxaan arkayaa khilaaf xataa dadkii labada gobol deganaa dhexdooda, qaarna ay soo dhoweynayaan, qaarna. bal noo sharax oo na fahamsii suu dadka kale u khuseeyana bal ku khulaasee ku dar. yaa cabdirasaaq, horta arrinta sidaad ula socoto ayaanu la socdaa. siyaasadda Somalilandna anigu hal meel baan ka taagnaa oo awar aynu sidaa hadal ku soo bilowday aynu ummaddeena wax la qaybsanno. marka mararka qaarkood xisbiyadan hoose iyo waxyaabaad laacib sagiiraan u arki jiray oo xisbiyadan dee markaas si loo fiiliyo waa 3 nin oo ilmaadeer ah oo wax weeye isku wada jufa ah. marka reer isbaahiyo anigu aan ka tirsanahay baan u arkayey. marka sidii xisbi weyn oo aan siyaasadihiisa iyo abjadiyaadkiisa iyo aragtiyihiisa iyo falsafadahooda aan daraaseeyo oo lama dhaqmi jirin. taas waxay dhaxalsiisay marka inaan xog badan ka hayn marka xisbiyada iyo doodahooda ay yimaadaan inaan aragtida guud ee dalka iyo ummaddan meesha u shahaysan tahay inaan isku hawlo mooyaane hoos inaan u dhaadhaco macno badan ilamay sii lahayn. taasina waxay keentay runtii marka xisbiyada la yidhaahdo inaan xogo badan waayo. laakiin sidaanu runtii la soconno dee maalin dhowey tolo odayaal baa hadlay. odayaashu dhowr waxbay ku dhawaaqeenoo dee gar eexana kamay madhnayn marka ayaga go'aamadooda la fiiriyo. oo madee iyaga laftigooda mala u baahan dib loo qiimeeyo waxa ay soo saareen ee aan gar eexa ahayn ee ay Somaliland ugu danaynayeenna waxa weeye wax weyn oo wax baajin kara ama wax badbaadin kara ma aha. go'aamada odayaashu kale dhowr go'aan bay ahaayeen. iyaga lafteeda waxaan jeclay wax yar inaan ka idhaahdo. waxaa ka mid ah tusaale ahaan oo kale inay ka hadleen qadiyaddii gacan libaax. waan u iman doonaa xisbiyada, laakiin arrintan inaan wax ka idhaahdo waa ku qasbana. gacan libaax bay ka hadleen oo ah buur ay niman jabhadii ama buuraley ay niman jabhadii galeen, ciidamo loo diray marka ay iswaajiheen oo ay ciidamadii dadka laayeen. waxay markaa soo saareen mag inay bixiyaan beelihii ay ka soo jeedeen jabhaddaasi. sanad ka hor bisha ay hadlayeen bisheedii Hargeysa waxaa lagu dilay 7 qof. Hargeysa iyo magaalooyinkii la midka ahaa laga mudaharaadayay oo maamulka Musabbixu xabadnoo la dhacay oo wali waalidiintii dhashay ay Hargeysa iyo Burca iyo meelaha la mid ah ay ka barooranayaan ilmadoodii wali ay qoyan tahay. may odhanin kuwaana magtooda hala bixiyo. waxaa marka horta go'aankani ilaahay quraanka waxa uu leeyahay in yurida islaahan yuwaffiqi Allahu baynahuma. markii laga hadlayay faamilka laba qof oo isqabtay baa cidda garta qaadaysa haddii daacadnimo ay ku jirto
ay qaadan ay waxtar leedahay laakiin ninka ummaddan u gar qaadaya ee garqaadkiisuna aanu daacad ahayn ee eexdu ay weheliso horta ma midha dhalaay wax badan ma keenayo marka saasaan horta dad fara badan ugu niyad samayn aniguna aanan ugu niyad samayn waxa ay keeneen go'aamadooda ka muuqday waxa ka mid ahaa waxa loo yaqaano doorashada isasaarka ah waa runtii waqti badan maan ka baqanay inaan naga qaado laakiin waxaan isku dayay inaan khulaaseeyo biyada Somaliland distoorku wuxuu cadaynayaa 3 xisbi marka 3 xisbi muddadoodu waa 10 sano xaqna waxa uu leeyahay 2 termi doorasho inay 10 sano jiraan 2 jeerna doorashada madaxweynaha ay ka qayb qaataan 10 kaas markay ka dhamaadaan liiska xisbiyada in la furo 3 xisbiye markaa jiray iyo ururada kale soo baxayana ay tartamaan dabadna 3 xisbiye hor leh ka soo baxaan amba kubii hore ha noqdaan amba kuba cusub ha noqdaan xisbiyada markaa hadda jira ee 3 haddaanan qaldanayn muddaxiloodkoodu wuxuu ku beegnaa December sanadkii 2022 December waxaan filay 25 inay ahayd doorasho hore markaa way soo galeen oo way qaateen doorasho hore oo waatii Muuse Biixi uu ku soo baxay waxay u lahaayeen doorasho labaadna inay ka qayb qaataan doorashadaasna waxay ahayd inay dhacdo November 13keedii 2022 inay dhacdo la soo dhaafiyay muddadii xaq u lahaayeen kadibna waxa weeye muddaxileedka mudda sharciyeedka ay lahaayeenna waa la riday doodooda markaa waxay ahayd xaq baan u leenahay inaanu tartanno maadaama distoorku noo ogolaanayo 2 muddaxileed oo mid aanu tartannay tii kalena si ula kas la noo dhaafiyey doorashada waa inaanu gallo baarlamaanka marka hadda kor wuxuu soo jeediyey waxa la dhahaa isasaar sidaad u fahmay waa dhici karta inaan qaldanahay waa in la isla qabto tartanka xisbiyada iyo tartanka madaxweynaha laakiin madaxweynaha loo ogolaado xisbiyada markaa jira oo macnaheedu yahay tusaale ahaan hadda bisha soo socota tusaale ahaan in doorashada la qabto doorashada lagu dhex wado doorashadii xisbiyada sida loo qabanayaana ay noqoto sidan soo socota in madaxweynaha tartankiisa la qabto laakiin ay u tartamaan madaxweynaha 3 xisbiye hadda jooga laakiin xisbi marka laga hadlayo xisbiyada cusub ee samaysmi doona iyo 3 hadda jiraana ay xisbinimada u tartamaan weedna waxa weeye tartanka xisbigana loo sinaado oo xisbiyada hadda jira iyo kuwa iman doona tartanka xisbiga ay u sinaadaan laakiin tartanka loo tartamayo madaxweynenimada aanay u sinaanin oo kuwii hadda joogay kaliya ay u gaar yeeshaan arrinta isasaarka laga hadlaayo waxaan u malaynayaa inay sidaas tahay waana tii hadda ka hor la diiday baarlamaanku u codeeyey ee Salmaan Gaal isagoon la tashanin golihiisa uu dib u soo celiyey oo bannaanka u dhigi jiray taasi markaa waqti markaa waxa weeye rajadu inta ka badnayd si roobka loo dhigay miya roobka u dhigay oo halxaalaha noqotay marka runtii doorada isasaarku waa uun xumad jabin laakiin xataa xumad jabin inay noqonaysa u malayn maayo sababtoo waqti ay waxtar lahayd baa la soo dhaafay laakiin waxa weeye dee nin hadda waxa weeye Soomaaliya waqtiina cunaha la qabay amba sidan yeel tiim baa kalifaysa mooyaane xal soo dhaweynaya waddanka dhan baa dagaal galay nidaamkii baa burburay ciidankii baa kala qaybsan waxa weeye waddanka xaalad dagaal buu ku jiraa Somaliland tii doorashada loogu talagalay la sheegan jiray maba joogto oo way kala go'an tahay marka macno badan hadda uu sii leeyahay odayaashu waxay ku dhawaaqeen aniga ima muuqdo waxaan kuugu daray yuu khuseeyaa okay waxaan filayaa cid khuseeyaa ma jirto kamay firin qorshaha kumay darsanin iyagu de sida ay leeyihiin Somaliland bay ugu talagaleen laakiin Somaliland waxa u baahan tahay dib in loo define gareeyo Somaliland waxa u baahan tahay dib in loo qeexo yaa Somaliland waxay sheegan jirtay ilaa yoocada lama maamul baa ka jira maanta Khaatuma State baa ka jirta Somaliland intii soo hadhay oo mustaqbalkeeda iyo masiirkeeda meel u socota aan la garanayn baa ka jira marka yuu khuseeya haddii Somaliland buu khuseeyaa Somaliland intaynaan waxa weeye cid khuseeya isla arag qeexitaankeedaan u baahano 3 gobol soo hadhay miya 3 gobol laftigeedan heshiis ku ahayn oo sida hadda aad tilmaanteen baynu arkaynay awdal baa mowqif gaar kale oo siyaasiyiinteeda ay diidan yihiin marka cid khuseeyo oo la iska yiri mooyaane ma bahayna cid khuseeyo marka waxa u baahan tahay Somaliland Sheekh Cabdisaaqo marka laga hadlaayo mustaqbalka ay yeelanayso
option badan baa hor yaala khiyaarka ugu fiican waxa waa su'aasheena ku xigtaa xagee laga aadayaa meesha hadda la joogo ixtimaalaad fara badan baa runtii jira markaa qaarna caqligaa qasbi doona qaarna duruufaha iyo waaqicaa qasbi doona waxaa qurux badnaan la marka ka caqligu keenayo in lagu qasbanaado khiyaarka ugu fiican waxa kaa dhex galo professor khadar su-aashaas inay igu dambaysaan rabaa waxaan arkaynaa dagaalkii markuu dhacay isdhexyaac tiro badan waxaan arkaynaa mudaharaadyo waxaan anigu aad u dhaliilaa dadka waxgaradka ama waxgalka ah waan arkay niman siyaasiyiina oo si fiican oo mugle u hadla mar walba tan iyo intii musiibadan gooja cadde ay bilaabatay 8 bilood ka hor wax ku dhow 8 bilood December last year waa 8 bilood waxaa hadlayay dad aad fara ku tiris u ah oo u badan dadka siyaasiyiinta sida jaamac shabeel iyo rag dhowr oo aan badnayn oo ka mid yahay oo dhaliilaya wax meesha ka jira waxaa kaloo mudan in aad loo bogaadiyo oo dib dadka loo xasuusiyo guddiga maamulka garxajis ee 21 ah ee uu hormuudka ka yahay cadde gude si waafiya oo mugle bay uga hor yimaadeen dagaalkii lagu qaaday laascaanood waxayna u arkeen gardarre inuu yahay waxayna dhaheen kuma jirno annagu shuqul kuma lihi laakiin culimadii dadkii aqoon-yahanka ahaa waxgaradkii kale waxaa jira waxaan arkaynay mudaharaadyo la abaabulay oo hargeysa iyo burco iyo ka dhacaya oo lagu taageerayo in laascaanood duulaan ka dhaco dagaal ka dhaco dad ku dhintaan oo la qaxo mid la eg baan aragnay markii dagaalkii dhammaaday oo la mid ah waxyaabaha aan arkayey oo aan aad ugu qoslay waxaa ka mid ah caaqilo iyo rag waaweyn oo ooyaya anigu rag ooya soomaaliya kuma aqoon waagii aan halkaan meelahan imi ayaan waxaan arkay rag marka wax ku dhacaan ooyaya markaasaan baqaracmi jiray waxaan dhihi jiray bismillahi raxmaan raxiim kaljarkeenna iyo dhaqankeenna kuma jirto ninku inuu ooyo waa la adkaystaa laakiin waa arrin iska caadiyo bini aadamku u baahan yahay inay ooyaan haddii dhibaata ay ku dhacdo laakiin waxaa isukay qaban la aan ooyay ma waxaan u ooyayaa nin kale dhibaatadiis inay dhacdo nin kale inuu gurigiisa dagaal ka dhaco nin kale in la qaxiyo waxyaabaa arkaya waxaa ka mid ah islaamo toorey watoole garowe waanu soconaa garowe ciidanka siida maxaa idhahdaa nuclear ku dhufo waxyaabahan maqliyay ka mid tahay nuclear ku dhufo ciidanka fasax kelmadda soo noqnoqotay ka mid tahay maxay tahay arrintaani maxaa shacabka iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo dadkii waxgalka ahaa iyo meeshii aanu xigmadda ku tuhmaynay maxaa si ah soo dhow wallahi waa hal xidhaale sheekh cabdisaaq waa hal xidhaale weeye waxaa jira nin la odhan jiray doctor mustafa maxmuud oo masri ahaa allah u naxariistay oo dhakhtar caafimaad ah aan filaya 2009 buu dhintay laakiin inuu dhakhtar ahaan ku caan baxay waxaa ka weynaa inuu ku caan baxay qoraa inuu yahay marka waxaa la dhahaa 9 kitaab meelahaas buu qoray buugtan akhriyo waxaa ka mid ah buug la yidhaahdo buuggiisa waxaa la dhahaa shaydaanu yaxkum ala shaydaan baa talinaya buugga markaad akhrido shakhsiyaadka ma warramaayo laakiin wuxuu ka warramaya arrimaha bulshada saamaynta ku leh iyo dadka dallayda ama dadka saamaynta leh iliidka loo yaqaanaa habka ay u adeegsadaan hadday tahay siyaasadda hadday tahay arrimaha bulshada hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay fanka iyo hal abuurnimada in marar badan la adeegsado oo bulshada lagu marin habaabiyo innaga bulshadana haddaad la socoto waxaan aaminsanahay 3 waxbaa ugu waaweyn oo la adeegsada waa siyaasadda waa qabiilka iyo diinta saddexdaasaa la adeegsada markaan waxaan idhaahdaa anoo buuggaas anoo markaan akhriyo waxaan idhi soomaalida 3 waxbaa si taban loo adeegsadaa 5 qolaana adeegsata 5 qole marka hadda si toos ah ayay qadiyadda Soomaaliland uga dhex muuqda waxaan idhaahdaa waxa adeegsadaa waa siyaasi dhagarqaba ah ganacsato dhiig miirata ah madax dhaqameed xalquutayaal ah wariyada namaraaca iyo wadaad duuhane ah 5taasi waa 5 waxa weeye maanta Soomaali oo dhan waxa weeye majaraha ka leexiyay waxaana ka dhigan tahay
in marka horeba dadka xilka ummadda u haya in badan oo ka mid ihi xil inaad hayso kama dhigna inaad geydo kama dhigna inaad u qalanto waxa weeye meelaha positionka leadershipka waad fadhiisan kartaa adigoon ehel u ahayn waxaan xasuustaa buugu qoray cabdilqaadir arooma allah u naxariisto buuggiisa waxaa la dhahdaa sababihii burburka soomaaliya cabdilqaadir arooma maalinta xorriyadda la qaadanayay nin qaangaadha buu ahaa maalintii dowladdii soomaaliya ay dhacaysay 90 amba 91 bilowgiisiina goob jooga ayuu ahaa soddonkaa sanana nin civil servantia oo dowladda u shaqaynaya buu ahaa buuggiis markaa wuxuu kaga duwan yahay waa shaahid cayaan soddonkan sano taariikhda soomaaliyeed buu la noolaa inta ugu weyn buuggiisana waa intaas soddonkan sano inuu ka warramo waxaa markaa uga socdaa arrinta aad weydiisay oo aad dadka noocan ahee waxa weeye madax dhaqameedka sheeganaya ee culimada ah waynu iman doonaa detailskooda haddaynu u baahano ee haddana sidan uga falcalinaya dhacdooyinka sidan taban ee naaqusnimada leh ee cawaamnimada ah culimooyinku markay nabadda yihiin ee waxa weeye ay dhaqan yihiin ay dhisan yihiin waxay ka dhigan yihiin sida ciidan gaardinaya waana runtii khulaasada buugga iyo khulaasada waaqica maanta aynu ku noolahay wuxuu ciidanku markuu gaardinayo waxa ugu horeeya wuri saf baa ugu horeeya safna ugu dambeeya wuxuu sida u gaardinayaanba waxa la dib hore mara marka wuxuu bulshada markay dhisan tahay wuxuu safka hore waxaa ku jira muxuu barwaaqada iyo nabadda iyo nidaamka iyo kala dambeynta iyo ummaddu sida caadiga iyo caqliga waafaqsan u fikirayso waxa ugu horeeya culimada iyo aqoon-yahanka iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo hal abuurka iyo dadka bulshada indhaha u ah waxa ugu dambeeya u dadka inta liidata tuuga dilaaga jaahilka maangaabka kuwaasaa ugu dambeeya wuxuu bulshada markaa burburta ee dagaalya wax galaan waxa ku dhaca dib u jeeso markay dib u jeeso ayaa hogaaminaya qoladii u dambeysay hogaaminaysa xaqiiqada markaan waxaan odhan karo horta duuduub ahaan 30 sano la soo dhaafay ummadda Soomaaliya waxay ku socotay dib u jeedso waxaana keenaya Soomaaliya bal meel kale ka kaale Somaliland 30 sano soo socda waa la majiiranayo waxa la lahaa nabad iyo nidaam iyo kala dambeyn bay samaysteen musabixi fama jaraha u haya hadda taariikhdaas ku midicsato kaliya waxa ku muuqanayo image kaaga soo baxay dhiig daadanayo wax kale ku soo bixi maayaan marka laga yimaado dawladdii Soomaaliyeed oo la dagaalamayay oo magaca mujaahidnimo uu ku qaatay marka laga yimaado maalintii 1991kii waxa weeye dawladdii Soomaaliya ay duntay waxa weeye ilaa reebor waa la wareysan karaa iyo dilay meelaha la midka ah xabal wadareed baa ka dhacay waxa geystay ciidanku hogaaminayay 1994kii geystay ayuu istaagay oo ay duuban tahay fiidiyohan u duuban tahay wax dili kara duca qaadan maayo degta qorigu hay jaro way dhacday banaan buu aakhira u diro ciidda hoosteeda mariyay labadii kun iyo waxa weeye 22 amba sanadkan bilowgiisii isagoo madaxweyne sheeganay maamulka waxa weeye hogaaminaya ummadda muu barakiciyay tobanaankun buu cagahaya gacmaha gooyay boqolaal buu aakhira u diray haddii markaa isagii uu yahay madaxweynihii ninka noocaasi oday dhaqameedka uu biilinaayo iyo yaraha u ah iyo wasiir awqaafka uu xushay iyo dadka noocaasi hidda markaa inay noqdaan dib u jeedso oo qaybsi ugu ummadda ay hogaaminaysa ay tahay waxaanu ka dayrinay wax ka badan waan filan karnaa Sheekh Cabdirasaaqo aad baa u mahadsan tahay 5 daqiiqo ku soo gabagabay xagee halkan laga aadaya sidaan tilmaamay waxaan filayaa 3 option baa Soomaaliland hor yaala midda koowaad waxa weeye dadka Soomaaliland reer Soomaaliland wixii ku soo haray wax garadka ay ogoli inay hambaliyeeyaan reer Khaatumo hambaliyeeyaan waxba loo bu'in oo ka kacaya dagaal labaad baan aadaynaa iyo lama baahna meesha lagu dagaalay xuduudda la sheegayo waa xuduud isdii jeexabaan u ixtiraafsanayn ciil ma qabeen maanta haddii kii jeexay uu ixtiraafsan yahay uu leeyahay waan ixtiraafsanaa oo xuduudkaagii qabso kii lahaa baan u ixtiraafsanayn ninkii lahaana uu geelisi arigiisa ku raacanayo colaad loo abaabulo lama baahna marka in hambaliyeeyo inta soo hadhay waxa soo hadhay ay iimaansadaan shaqo ay isugu yimaadaan saama qaabsi ay ku heshiiyaan ama marka maamul iyaguna Soomaaliya ka mid ah noqdaan ama muusigii u baxay 32 sano ha sii dalacdaan iyaga Allah waxa u soo hadhay inay iimaansadaan oo ay isugu yimaadaan haddii reer Boorama ay qancin karaan inay qanciyaan
haddii kale dee dagaal way arkeen oo way ku soo khasaarumeen reer tolkay mar labaad haddana dagaal cid kale inaan ula tegin khiyaarka ugu fiican oo haddii caqligu uu shaqaynayo culimo iyo cuqaal ay tinay isaga yimaadaan waa kaas weeye khiyaarka labaadna waa ka hadda la abaabulayo waa kan muuse biixi ay ugu badiso ceebihiisuna ay ku asturmi karaan oo dagaal labaadoo tollaayay ah waana ayaan daro waxa muuqata mucaaradkii inuu lugta ku martay mucaaradkii dadkoo dhamme ay filayeen inay iilka leekaysiin doonaan in xaaladda siyaasadeed uu ku sugan yahay ay ka faa'iidaysan doonaan waxa weeye sanad ka hor markay mudaharaadeen dadkii u mudaharaaday xabad buu la dhacay xabal wadareed buu u diray waxa weeye wasiirka arrimaha gudaha maalin cadoo cadceedu dushiisa ay taagan tahay ayuu warbaahinta la hadlay waxa uu mucaaradku waxa weeye xamar waxay ka keeneen argagixiso ay ugu talagaleen hargeysana waxa weeye iyo Soomaaliland inay qarxiyaan waxa uu eedeeyay mucaaradka jabadaha buuraha galay iyagu inay saareen waxa weeye Chinese dahabi oo soo maray inuu yahay ka faa'iideysanayaan wixii oo dhan waxa lagu dambeeyay oo lagu daday tuutal loo geliyo nin dalkiisii jooga waan ku duulaynaa baa lagu kaxaysta xaaladda markaa muuse uu jecel yahay aad muddo mucaaradku inay la qaateen loona durbaantumaayo dadka shacabka ahaayee 22 sano kontiinarka lagu hayay ee adduunka aakhiraba la seejiyey ee maantana colaad hore la geliyeen aan isweydiinahayn 40 sano ka hor Sheekh Cabdirasaaqo waa waxaan xasuustaa anigoo yar iyadoo la leeyahay waa la inoo tashaday haddana reer hebel lahaa waa la inagu soo duulay okay i'tiraaf baan sugaayay dowladnimaan sugaayay waxa weeye dhismaan sugaayay waxbarashaan sugaayay caafimaad baan sugaayay horumar baan sugaayay ma waxaan sugaayay 40 sano kadib in la igu caliyo waxa weeye waa la inoo tashaday waa la inagu soo duulay iyo waa la ina xasuuqay ma sugahayn xaaladda labaad markaa muuse maanta uu abuurayo maangaabyada siyaasadeed ee xisbiyada sheeganayaana ay muuqateen ay la qaateen waa in colaad baahsan la abuuro taasna waxay keeni kartaa inay geyiga Soomaaliyeed ay ku baahdo waa ninka loo socdaa faraha baruuriya kuma wato sax weeye ciidanka maanta la leeyahay dib ha loogu celiyo waxa laga keenay tukaraq oo fadhiista gooja cadde waa laga soo maanta oog buu joogaa oo tula sama ka dhaafto oo haddana waxa weeye laascaanoodii waxa weeye aad dhaafto meeshii loo jiray gooja cadde oo tukaraqayo cadaad sheegaysa aad dib ugu laabato dee durbaana kama horeeyaan xabad baa kaa horeysa marka waa aan isku baaba'no waa dhiigga Soomaaliyeed haddaato waa 1991 meeshii la joogay ummadda Soomaaliyeed ku noqoto kaasna waa khiyaarka labaad waana ka muuse maanta uu rabo khiyaarka saddexaad waxa weeye beesha dhexe inay birta isula gasho oo dagaal gaagmareebtii ka dhaco isagana saansaantiisa waa muuqata saddexdaa khiyaar aan ahayno meesha u yaala Soomaaliland ma jiro labada khiyaar ee dambe kolkaas oo ah inay beesha dhexe isdisho iyo in beesha dhexe isku duuban ay dagaal u qaashaarato meesha aado labadu waxay keeni karaan ciidamo shisheeye inay soo galaan oo lagu kala guntado oo Etoobiyaankii u soo waxa way u bu'aayee dekad baan rabaa lahaa maalmihaynu maqleynay ciidamada samaysanayay jaaniskii ay ku raadinayeen dekadaha halka uga soo baxo hal kala gaaro deedna berbera iyo xeebaha dheer ee dhararan aynu leenahay in la qabsado waa optionada saddexda Soomaaliland hor yaala